بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ميزانية دولة waxay u qaybsantaa laba miisaaniyadda dawladda dhexe iyo miisaaniyadda guud marka miisaaniyadda guud waa afar qaybood waa ta dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawliga iyo mashaariicda ay maalgeliyaan deeq-bixiyayaashu afartaa weyn marka miisaaniyadda dawladda dhexe sanadkan soo socda ee 2022 waxaan u qoondeynay laba trilyan 410 bilyan 452 milyan 894 kun 335 oo tii hore ka badan amba ta sanadkan 2022 ka badan boqolkiiba 11 miisaaniyadda guud sanadka soo socda waxay noqonaysaa marka afarta la isku daro 3 trilyan 447 bilyan 802 milyan 505 kun 538 waxaanay tii hore ka badan tahay boqolkiiba 17 miisaaniyadda dawladdu waxay ka timaadaa 3 meelood waxaa ugu horeeya miisaaniyadda ka timaada kastamyada oo ah boqolkiiba 77 iyo miisaaniyadda ka timaada cashuuraha beriga oo aanu odorsnay inay noqon doonto boqolkiiba 20 inta soo hadhay boqolkiiba 3 waxay ka timaadaa fiye kaloo la qaado iyo liisamada ay ka yimaadaan miisaaniyadda sanadka soo socda 2022 waxay ku salaysan tahay oo salka ku haysaa 3 qodob qodobka hore waxa weeye waa geedi socodka iyo korarka miisaaniyadihii hore qodobka labaadna waxa weeye waa xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo sanadka soo socda qodobka saddexaadna waxa weeye waa siyaasadda miisaaniyadda iyo qorshaha qaranka haddii marka aan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadihii sanadadii hore sanad kasta miisaaniyadda way ka badnayd miisaaniyaddii kal hore sanad bayn bay koraysay sanadkii 17 ilaa 18 waxay korodhay boqolkiiba 8.6 18 ilaa 19 5.6 20 ilaa 21 5.10 20 ilaa 21 5.9 ayay korodhay sanadkan soo socda 2022 waxaanu qoondeynay inay korodho boqolkiiba 11.2 xagga siyaasadda miisaaniyadda soo socota 2022 waxay ku salaysan tahay qodobadan soo socda kugu horeeya waxa weeye isu dheelitirka dakhliga iyo kharashka inay miisaaniyaddeenu noqoto mid iskoosata waan waxba laynagaga yeelin waxba laynoo raacin waxaa kaloo ka mid ah siyaasadda xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka ka guurista ku tiirsanaanta cashuurta kastamka xoojinta amniga qabashada iyo soo saarka biyaha ku talagalka abaaraha xoojinta kaydka qaranka kor u qaadidda adeega caafimaadka iyo waxbarashada dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka xoojinta raadinta ictiraafka iyo dhisidda kaabayaasha intaasay ku salaysantahay maadaama aynu ka dooday waxaan jecelahay sidaa ay wasaaradda maaliyaddu soo jeedsay dadaalkaa ay galeen iyo wixii aynu fikrad ku birinay oo ay la noqon doonaan oo sixi doonaan in aynu maanta u codayno inaynu u ogolaano in miisaaniyadda sanadka soo socda si ay soo jeediyeen aynu ka aqbalno marka waxaan jecelahay golaha intii ogol in miisaaniyadda saa lagu sii daaya inay gacanta taagto yaa ka aamusay yaa diidan aada iyo aad baa mahadsan tihiin hal ka aamusay cidina ma diidin iyonana masir isku raacay goruhu aada iyo aad baa mahadsan tihiin waa hambalyaynana wasaaradda waana usoo cabinayna saacadii ku